Assalaamu calaykum. Taariikhda adduunku waa mid taxane ah sidii tusbixii dunida casriga ahina ku dhaadato dabcan sida diimaha, dhaqamada, dhulalka iyo asalka bulshada. Waxaana loo tixgeliyaa ama loo diyaariyey macaadyo ay ku xardhan tahay taariikhdaasi si jiilba jiilka ka dambeeya ugu gudbiyo. Maxaa yeelay haddii aad doonaysid inaad wax ku ogaato ummadaha iyo dalalka waxa ugu horreeyaad adeegsataa waa taariikhda. Sida awgeed waa muhiim arrimaha ku gadaaman taariikhda. Ku soo dhawow muuqaalka iyo maqalkaad maqashaan oo idinka imaanaya Boni Media oo ku saabsan taariikhda Soomaalida. Waxaynu ka hadlaynaa ka hor xilligii gumaystuhu carriga Soomaalida cagaha soo dhigin. Muuqaalkan wax ahamiyada ma siin doono dhibaatada iyo dhabarjabka uu sababay gumaystuhu 150 sano ee u dambeeyay. Marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waa dhul xor ah 100 sannadood 200 sano iyo wax ka badan. Sida taariikhdu qorayso, Soomaaliya waxay dhacdaa mandaqada bariga Afrika, waana dhul saaran xeebta ugu dheer Afrika. Sidaa awgeed waa deegaan istaraatiiji ah. Sida ay taariikhyahanadu sheegaan ama taariikhdu ay qortay waxaa suurtagal ah in dhalashada Nebi Ciise calayhi salaam ka hor lagu noolaa bariga Afrika. Dad ayaa qabaa in bini'aadamku ka soo jeedo bariga Afrika oo ah dhulka Soomaalida kadibna ugu sii faafay adduunyada inteeda kale. Haddii aan intaa kaga gudubno raadadka Soomaalidii hore, waxaa ka mid ah sawirrada Lascelles waxay daboolka ka qaadayaan taariikhda Soomaalida ee duugowday. Waana sawirro iyo farshaxanno la garan waayey waxay tilmaamayaan ama ka turjumayaan waxyaabaha u samaysan sida wuxuusha. Sidoo kale gacan biyoodka Berbera, magaalada Berbera waa magaalooyinka ugu taariikhda fog bariga Afrika. Iyo sidoo kale magaalada Saylac waa magaalooyinka ugu qadiimisan bariga Afrika. Dhul saaran ama dhul istaraatiiji ah, mid dhaqaale iyo mid ganacsi labadaba. Haddii aan intaa ku gudubno, sidoo kale Soomaalidii xilligaas hore ma ahayn dad cawaan ah, waxayna xidhiidho la lahaayeen dadyoogii iyo xadaaradihii kala duwanaa ee adduunka sida xadaaradii Giriigga, Roomaanka iyo faraacinadii Fircoon. Xidhiidhka Soomaalida iyo faraacinadii Fircoon waxay socotay gaar ahaan faraacinkii Saaxura ilaa iyo qoyskii 18aad ee maamulayay faraacinadii Fircoon, boqoradii ilaa boqoradii Xabsad-shood. Xiriir heer sare ayaana kala dhexeeyay Baabuliintii dhulka labada webi ee Ciraaq iyo Finiqiintii dhulka Shaam siday taariikhdu qortay. Soomaalidii xilligaas waxay ka ganacsan jirtay qiyaastii qalabka dhirta laga qoro iyo waxyaabo kale. Istaraatiijiyadda awgeed dhulka Soomaalidu waa caadi in muddo dheer lagu noolaa bariga Afrika, waana ka hor taariikhda miilaadiga 1200. Dhinaca kale waxay taariikhyahanadu sheegaan in Islaamku uu gaadhay dhulka Soomaalida ka hor intii uusan gaadhin jasiirado badan oo Carbeed. Waxay suubanaha rasuulka iyo asxaabadiisii ka soo degeen magaalada Saylac oo xilligaa ka tirsanayd dhulkii bari ee boqortooyadii Aksum ee dhulkii Abyssinia oo fadhigeedu ahaa gobolka Tigray ee maanta Itoobiya. Sidoo kale waxa aad loogu ammaanaa Soomaalida dhaqanka iyo ilaalinta diinta Islaamka, waana dad jecel islaamnimada ilaa iyo maanta iyo muddadaas taariikhiga ah ee aadka u dheer. Imaam Axmed Ibraahim Gurey, hogaamiye iyo furtaa Soomaali ah. Imaam Axmed Ibraahim Gurey wuxuu ku dhashay magaalada Herar, deegaan u dhow 1488, wuxuuna bartay diinta Islaamka ilaa uu heer sare ka gaaray 1523. Wuxuu sameeyay ciidamo awood badan. Haddaba haddii aad ogeyn ama aadan ogeyn intii ama in Itoobiya iyo Soomaalida ama Soomaaliya cadaawad u dhaxayso, ogow maanta 10 qarni dagaal socday tan iyo xilliga Axmed Gurey oo ah 100 sannadood ka hor. Dabcan Imaam Axmed Ibraahim Gurey wuxuu lahaa ciidamo Soomaali u badan. Wuxuu dagaal adag la galay imaamku boqortooyadii Itoobiya, waxayna ku dagaalameen gobolka Tigray ee ilaa uu qarka u saarnaa inuu qabsado Itoobiya. Kadibna waxay qaylo-dhaan u dirsadeen kuwii Yurub oo ugu horreeyay dowladdii Boortaqiiska. Ciidamadii Imaam Axmed Ibraahim Gurey oo u badnaa Soomaali waxay jilibka u dhigeen ciidamadii huwanta ahaa.
dagaallo adag ayaana dhacay 1543 kadib dhaawac ka soo gaadhay dagaalka ayuu u geeriyooday ama u dhintay imaamku xilliyada. Imaam Axmed Ibraahim Gurey wuxuu qarka u saarnaa qabsashada Itoobiya ama waxaa lagu dagaalamay gobolka Tigray ee qiyaastii awoodda uu lahaa Imaam Axmed Ibraahim Gurey. dabcan aad ay u adkayd quwaddaasi. kadib dhimashada Imaam Axmed Ibraahim Gurey waxaa boob loo galay dhulkii Soomaaliyeed ee bariga Afrika maadaama aysan dadku midaysnayn. xataa haatan codkan duubayno haddayna bulshadu midaysnayn oo ayna doonisooda lahayn. dabcan maanta waan aragnaa wadamada qaar waxa ka dhacaya iyo sida boobka loogu geysanayo hantida iyo dhulkaba. umuuraha Soomaalida Yacquub Alxamawi oo noolaa taariikhda miilaadiga umuuraha Soomaalida Yacquub Alxamawi oo noolaa taariikhda miilaadiga 1187 ilaa 1222 wuxuu dhulka Soomaalida ku tilmaamay dhul juqraafi ah iyo sidoo kale barwaaqo yacni cagaaran. wuxuu ku tilmaamay oo kale xeebaha Soomaalida in laga helo canbarka oo ay ugu caansan tahay Muqdisho waana magaalooyin saaran badda cas. sidaas awgeed waa dhul istaraatiiji ah oo barwaaqa. dhinaca kale wuxuu tilmaamay in dhulka Soomaaliyeed uusan ka mid ahayn boqortooyadii Aksum ee Itoobiya ka talinaysay sida ay taariikhdu qortay. sidoo kale dhulbaraha adduunku wuxuu maraa koonfurta fog ee Soomaalida maadaama dhulbaraha kala qaybiya cimilada adduunka dhinaca roobabka iyo jooga sare ee dhulka iyo cimilada qabow. wuxuu maraa koonfurta fog ee Soomaaliya waana dhul aad markaad qiyaastid ay roobabka aad ugu badan yihiin kana qoyan dhulka kale ee Soomaalida. marka loo barbar dhigo dhulka kale caadiga waa dhul aad u barwaaqa. koonfurta fog ee Soomaaliya dhulbaraha adduunkana wuxuu maraa wadamada hoose ee caalamka iskumana mid ahaa cimilo ahaan iyo sidoo kale waqtiyada qaar. haddii aynan bulshadu midaysnayn in la boobo oo dhulkeeda dadweyne ama dadka cadowga ay qaataan waa mid iska caadiya adduunka laguna yaqaano. tusaale ahaan haddaanu soo qaadano Andalus dhul ay boqortooyo islaam ay lahaan jirtay oo hal mar la waayay kadib markii ay burburtay boqortooyadii Andalus. dhulkiina uu ka baxay gacantii islaamka oo ilaa iyo haatan aan la aqoon xataa sidii ay u baxday aan cid sheegata dib loo maqal. waana wax runtii dhab ah in sidaas boobku ugu jiray abidkeed. waxaa boob loo soo galay dhulka Soomaalida oo la kala qaybiyey oo sidoo kale koonfurta la siiyey Talyaani waqooyigana la siiyey Ingiriis halka xeebta Jabuutina gacanta loo geliyey Faransiiska. oo dhinaca kale dhulka Soomaaliyeed ee taariikhiga ah dhulkan qadiimiga ah ee saaran badda cas qiyaasta cabirka guud ee dhulka Soomaaliyeed ee xeebta saaran wuxuu dhan yahay 1,115,283 kiiloomitir sidaan soo xiganay. dabcan taariikhdaas aadka u dheer ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin waa mid ay inta badan duugowday. taariikhda marka la qorayana inta badan wadamada caalamku waxay adeegsadaan inay kaydiyaan si jiilba jiilka ka dambeeya ugu gudbiyo maxaa yeelay waa mid muhiima waana mid saldhig u ah cid kasta oo markaasi ay markaa kula tartami karaan waxay taariikhdu tahay iyo asalka bulshada. dabcan dhulka Soomaaliyeed ee maqan ee loogu sheekeeyey bulshooyinka dib loo siiyey ama kuwa ay gumaystayaashu keeneen dhulka Soomaalida. juqraafiga ee Soomaaliyeed kuma jirto marnaba waana wax ka go'an in ay Soomaalidu mar uun dib u midoobi doonto sida ay dad badan ka faalloonayaan. mana aha bulsho kala maqnaan karta marka laga reebo 150 sano u dambeeyay ee la kala qaybiyey. kala qaybintaas oo ay horseeday nidaamka ama waxa loo yaqaan qabaa'ilka iyo sidoo kale sandanadii yaryaraa ee markii Axmed Gurey dabcan sidaan barnaamijka kor ku soo sheegnay uu geeriyooday ee boobka loo soo galay kadibna ay kareeyeenba halka siyaabo kala duwan loo kareeyay kadibna lagu sii jaridaystay dhulka oo aan dibba looga tagin. muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. taariikhda taageer.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.